wafdidii uu hogaaminayay aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cali Mataan gudoomiye ku-xigeenka guddida wadada Tabca ee beryahanba howlaha shaqo u joogay gobolka Sanaag ayaa saaka gaaray deegaanka beeraleyda Midhasho oo 30 kiiloomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Ceergaabo waxaana wafdidani markii ay gaareen deegaankaasi halkaasi ku soo dhaweeyay isla markaasina ku maamusay qada sharaf si heersara loo soo qaban qaabiyay Chief Caaqil Caynaashe Caynab Cali Aamus iyo sidoo kale waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Midhasho iyo waliba xildhibaan Ibrahim Axmed Laangare oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo kulmiye iyo dooxada weyn ee meesha faca weyn leh ee aan maanta halkan ugu nimi wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga Tabca ee qadar ururinta ee Tabca Cabdiraxmaan Cali Mataan oo maanta halkan ku soo dhaweynay annagoo barna Ceergaabo ka yimi barna halkan joogeen وهرب شرفيتنا وجسمي شيف عاقل عيناشة علي آموس وفتقان علوس إيمان تهلكا نوغيمي إيوه قامين أيو قدومي يكحيقينكا قادان أورورنتا ودادا تابعا عبد الرحمن علي متان يوفود بدن عقاشة له حلبانة له سياسيين له إيمان تهلكا نوغتسمي وإذن سود وينين وفتجا الصعدة دنت جود عام هاند ودن كوبا هاي وضع تبع هرمود ككتهاي وحنولنا هاي إلى هاي ميسان كحسنات كهيدين صاروا ضل بدن بحاجة كحجة وإلى شدن له ودooyinka waa u baahan yihiin geestooda waxa dhinacooda halkaasi ka hadlay qaar kamid ah xubnihii wafdidan uu hogaaminayay aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cali Mataan siyaasi Cali Dhisaaye iyo sidoo kale xubno isugu jira cuqaal iyo waxgarad kale kuwaas oo ka mahad celiyay qada sharaftan lagu maamusay maanta ilaa iyo sidoo Hargeysa uga soo degay inta waa wada socono kolba meel safarana waa u hareen meelo kale u booqanaya iyo casuumaduna way isdaba socdaan meelo badan uu soo maray maantana waxa halkan martiqaadkan ugu sameeyay Chief Caaqil Caynaashe Cali Aamus sida uu noo soo dhaweeyay annaka oo hadii la leeyahay iyo martiqaadka uu noo sameeyay iyo deegaanka quruxda iyo dhirta iyo midhaha ay na soo hordhigeen waxaan ugu leenahay Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay ha idinka abaalmariyo haddii wada tabca la samaynayo haddii kuwa beeraha u baadho la samaynayo haddii kuwan la sii sawirayo haddii kuwa kale la dhexdhigayo ummadu nabadda iyo wax wada qabsigun baa dawada ku jirta hunuuda iyo gudaha iyo waxaas dadku kor ha u baxo meel sare laga fikiro meelaha hareeraheennana waxaan maqlaynaa habeenadan dad ka yimi aan gobolkaba ahayn oo meelo fog ka yimi oo le Ceergaabaanu weeraraynaa ninkii hadalka la yaabay waa la tahay buur soo dhaweyntanayna soo dhaweeyeen reer Midhashood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna ha ka abaalmariyo Chief Caaqilka caasimadu noo sameeyay Caynaashe Cali Aamus wuu gooyay maalintii laakiin maanta aan deemi waa butaystay dooxadan taariikhiga waxa ku xuntaad كل ينتنا قرب شوكتها مرة قدات كانوا مرة حدا وعاد ياد بقوم هالسين إلى هنا وقت ساي مرينا وحبر الشقالة وحوي ضدكوا هنا وحس كجد إذا أنا يعني وفكوا مركوا وحونا كسووا إن ضد بدني كفهمان ندام هذا النوع ذا هوك وفتي بالعرب بانوهين وحنو نبي ملشوا وحنا لكو سو دويي Caynaashe Cali Aamus inta waxaan leenahay meeshii kastaba inaad wax ka qabato oo marto oo si aragto oo cid baa ka dambeysay cid u sheegtaa baan rabnaa inta halkaas ka gaaraya gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina ka sheekeeyay taariikhda dheer ay leedahay deegaanka Midhasho aqoon-yahan Cabdiraxmaan Cali Mataan ahna gudoomiye ku-xigeenka guddida wadada Tabca ee gobolka Sanaag isaguna geestiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay iyo waliba sidoo kale qada sharafta lagu maamusay waxaan leeyahay horta number 1 reer Midhasho oo horeeyo Caynaashe Caynab
cali aamus waxaan leenahay soo dhaweynta iyo diyaafada aan noo dhigteen tii boqorada loo dhigi jiray ah ilaahay idinka jasaa isiiyo 34 sano ka hor waxaan filayaa inuu geedka ahaa ama beerta labada mid buu ah aniga oo markaa soo todoba baxay oo aroosa ba halka waxa nagu soo dhaweeyay oo sawiradii aan weli hayaa aynab cali aamus bahana taasoo hore noogu dhigay maanta tiitu lamida bad adna noo dhigtay waxa leeyahay dhaqanna waad u leedahay taariikhna waad u leedahay jazaaka allahu khayral jazaa magaca cali aamusna waa laga sheekeeyay ama gobolka Sanaag halkuu kaga jirona waynu ogna Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag